dadka laga hadlayo ee la tirinayay beelaha reer Nuur oo ka kooban laba degmo ka kooban waxa loo tirinayay ilaahay baa loo qayshadaa horta oo ka wax bixiya waa ilaahay bini aadan waxba ma bixin karo ilaahay baa wax bixiya ilaahay baan horta dadka u baryaynaa ilaahay inuu soo gaadho oo raxmadiisa iyo naxariistiisa inuu ku soo dayo oo baahida ay qabaan ilaahay waxaan leenahay ilaahaygayow cidna kuma garab dhigayne adigaa dadkaasi abuuray kana mas-uule ilaahaygayow soo gaadh baan leenahay ilaahayna naga aqbalo waan ku rajo weynahay in ilaahigay soo gaadho ilaahay waayo ilaah kaloon sheeganaynaa ma jirto waa ilaah waaxidka intaa haddaan ka gudbo waxay odayaashu iskaga daba dhaceen inay guddida abaaraha lagu sheegayo wax qaybinaysa dee dadkaa la soo gaadho waxa leeyahay nin baa yidhi maqalay warlaay ma lagu warramay annagu ninna wuxuu yidhi shubaal qayb xumi waa waxaan qabo ma qoonsado dhibaataha imika la tilmaamayo ee beelaha laga tilmaamayo waa joogto ayay u yihiin joogtay u yihiin oon ognahay oon xugugaal u nahay qolada dawladda sheeganaysa Soomaalilandna way og yihiin baahi kasta waan u sheegnay waxa la yidhi waan idin dibudajin baan idin dhagax dhigaynaa waa la dhagax dhigay ma karayno ma yidhaahaan qolada imika gacanta ku haysa xukuumadda haba yaraatee wax loo qabtay ma jirto waa laga been sheegay dhagax dhigii waxa kaloo nidhi dhakhtar baan u baahannahay waa la dhagax dhigay wax alla wax laga qabtay ma jirto halkii baa lagaga tegay waxa kaloo nu sheeganay wadooyin la isku xidho oo magaalooyinka ay yihiin ruqi iyo dila isku xidha oo madaxweynuhu maray waa la ballan qaado waa la dhagax dhigay halkii bay fadhidaan waxa kaloo baahi u sheegnay dadka beelaha reer Nuur agoonta ku badan waxaan doonaynaa inaan u dhisno dadka taariibta 2,200 oo reer Nuur ayaa dadka ugu horeeyo taariibay inamada iyo dadka daayirta taariibtay waxay ku kalifay dugsigii sare kolkay ka soo dhaadhaceen ay ka wax jaamacadii ka bixiye waayeen bay dhaqaaqeen iyaga dadka warseego wadada badda ku horseeday waxaan nidhi dawladda waanu sheegno waxaan nidhi waxaan doonaynaa dugsi farsamo ama boodhina hal nagu caawiyaa la noo dhiso waayihee soo doondoonta baa la yidhi waan soo helay baan nidhi waan idiin imanaynaa baa yidhi ilaahay mika waa la naga maqan yahay waxa aan sheeganaynaa waa waxaa soo miidhan aniga oon wada gaari karaynin maantana anigu horta kuma yidhi diila qabo cadaalad baa loo yaa dadka wax loo siin sababtoo waxaan qabaa Soomaaliland waxay ku caan baxday qabyaalad iyo cadaalad darro labadaasay ku caan baxday waan ognahay waxba qaban kari maayo ma yidhaahaan waxna ma qabtaan oo dadka uma qabtaan waxaan leeyahay odayaasha waan isku qabanno warqaylada ilaahay waan ku daysana baan idhi habase yeeshee maya baa la yidhi dawlad waa loo qayshadaa dee mucaawinada dadka islaamku dibadaha ka keenayo kol haddaan cadaalad loo qaybinayn waan ku hadlaynaa baa la yidhi sidaasi ayaan meesha ku soo fadhiisanay maantana waxa weeyaan waxaa loo ooyayaa war ninku ma jalbu u baahan yahay
مسح الرجو بهاي إنه أرد بيله ما توا جلوي يا وحل لقاض لي واجل وحيا بيرا بيرليده وحصو صارك waxa loo qaybi jiray saacada loo qaybi jiray dadka kolka abaartu sidaa ugu dhacdo saacada loo qodi jiray inta xukuumaddaasi Ahmed Maxamuud Siiraaye uu qabsaday saacad nin dad masaakiina wali looba qodin gabilay weydiiya boorama weydiiya looma qodin qof dhibaataysan hal saacadood looba qodin intaasina dadku uu abaaraysnaa maanta haddaba waxaan maanta waa khaatumadii u dambaysay waar dadkaasi kii qoodi karaya kii dadka ha loo qodo qoodiyada ha loo qodo waqtigii la qodayay baa la joogaaye kii raashin lagu caawin karaya dadka loogu qaylan karayana ha la siiyo